saacadu xilli aan ku qiyaasay 4:40 meelahaas xilli ku beegmay isgoyska tarabuunka dhanka yaad baamigan kalaax waxaa dhacday wiil bajaajla ayaa wuxuu waday gabar cudurkan HIV/AIDS qabto waxaa dhacday in wiilkii uu kasoo qaaday meel sida aan u fogin tarabuunka markii uu dhaxda soo gaaray wiilka xoogaa yar uu soo dhaafay waxaa dhacday in haweeneydii cunugii oo laamiga saaran oo bajaajka si xoog leh ku socdo cirbada la soo baxday ku dhufatay waa gartay markii cirbada ku dhufatay cunugii wuu qeyliyay bareego markii uu jiray wuxuu ku dhacay uu soo booday wuu ogaaday in cudurkan in ay durtay isla markii uu dareemay waxaa dhacday meesha waxaa ka dhawaa ciidamada ammaanka oo cabdibilay ilaahi aan ku qiyaasayo 7 iyo 6 inay saarnaayeen meesha way yimaadeen dhacdadii arkeen way ku soo xoomeen intaasna ciidamadii maan koor dadka tarabuunka meesha ku soo yaa cunuga qayligiisa lagu soo kala orday waa gartay cawaado afka furtay kadib ciidamadii ay yimaadeen oo meesha ka agdawaa haye maxaa dhacay marka kadib waxaa dhacday in ciidamadii ay meesha yimaadeen ee dadkii ay kala ceeriyeen adiga daqiiqado yar ee wadada ay xireen waxaa dhacday in haweeneyda ay gacanta ku dhigaan wiilkina ay gacanta ku dhigaan bajaajkina ay la wareegeen marka sidee lagu xaqiijiyay in haweeneydan ay qabtay cudurka HIV/AIDS wax yar ka hor markaa meesha aan kasoo gudbay dad aan ku kalsoona waxay ii sheegeen oo meesha joogay in haweeneyda ay ciidamada ee waraysi gaar ay ka qaateen waa gartay waxay u sheegtay in ay yihiin group haween macnaha ay gaarayaan adiga xoogaa group ay sheegtay inay gaarayaan oo adiga 10 iyo meelahaas haye waxay sheegtay in Hargeysa laga soo diray